buuni wuxuu ka mid yahay xisbiga mucaaradka kulmiye waana ku ixtiraamsanahay aragtidiisa laakiin de madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal Ciro buuni sanka u daloola sanka inuu madaxweynaha qaasado sanka u daloola haddii kale halkii uu joogi lahaa isagu isweydiiyo annagu gun ma nihin aarsanaysa laakiin gob arrimisaan noqon doonaa ilaahay idinkiisa oo dalkan iyo dadkan isku soo celisa wanaagiisii ka talisa dhaawacyadii ilaahay idinkiisa wadankan kala gaaray waxaan doonaynaa inaanu dhayno inaanu qacan nabdeed wadanka ku hogaaminaanu doonaynaa ilaahay idinkiisa waxaan se ka digayaa runtii oo aad iyo aad uga digayaa waxay nimankii bilaabeen boob baa la bilaabay waxa la sheegayaa baabuurtii wantanada ahaa in la oranayo hebelow 2000 qaado lambarka looga bedel marka waxaan uga digaynaa dawladda hore waqtigeedu dhamaaday ee dhacday ee laga codeeyay ee shacabku runtii ay ku yiraahdeen waad ku guuldareysteen hogaamintii dalka iyo dadkaba inay ka digtoonaadaan hantida ummadda ay boobayaan buuni wuxuu yidhi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxaynu ugu yeeraynaa wasi madaxweynaha la doortay Muuse Bixina waxaynu ugu yeeraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka wuxuu afka kala yar xishooday inuu yiraahdo Bixina waxa lagu yeerayaa madaxweynihii laga guuleystay ayaa Bixi loogu yeerayaa Cirana waxa loogu yeerayaa madaxweynihii guuleystay marka horta wasiir buuni waxaan leeyahay de clip yar oo hore uu jiray oo uu qabtana uu jiro oo lahaa wadan hadduu soo baxo ka waran baa lagu yiri wadan hadduu soo baxo horena hadduu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baabaa dhaw horta waxaan leenahay buuna waanu soo baxnay qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland muu baabiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi baana madaxweyne ka adigana isaga ku madaxweynaha buuna isaga sanka u daloola anigu runtii ma hii dadka hadalka la gabada runtana sidii taanu sheega buuna sanka u daloola waxa sanka u dalooliyayna waa codka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland baa waxay kala doorteen 3 madaxweyne nin 4 bay siiyeen ninna 200 iyo xoogay bay siiyeen ninna wuxuu maanta wadanka ku hogaaminayaa 183 kun oo cod buu ku hogaaminaya marka Soomaalidu waxa la yiraahdaa nin 100 nin ka duday fidayara baa la yiri marka buuni anagu runtii waxaan u aqoonsanahay wasiir dawladdii hore ee dhacday ee shacabku ku yiraahdeen waad ku guuldareysateen dalka iyo dadka ee shacabku ka codeeyeen wasiir u ahaa baan u arkaa marka Soomaalidu waxa la yiraahdaa buuni maanta kale inuu qariya yiraahdo waayo hadalkiisii shalay iyo kiisa maanta de Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala waxaan kala fadilay Cabdiraxmaan la hawla wala quwwata anagu oran mayno waxbaanu qabanay waxaanu sidan nidhi badaanu macaanay cirkaanu soo dejinay laakiin ninkan awood Ilaahay buu ku yimid shacabkaanu Ilaahay awoodiisu soo dhaxmariyay buunina wuu ku khasbay yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inuu aqoonsado madaxweyne la shaqeeyo shacabkiisa yahay marka buunan waxaan u aqoonsanahay mid kamid ah shacabka iyo inuu xisbi mucaarada ka tirsan yahay mana nihin dadka Soomaalidu waxa la guntu way aarsataa laakiin goobtu way arrimisaa annagu gun ma nihin aarsanaysa laakiin gob arrimisaan noqon doonaa ilaahay idinkiisa oo dalkan iyo dadkan isku soo celisa wanaagiisii ka talisa dhaawacyadii ilaahay idinkiisa wadankan kala gaaray waxaan doonaynaa inaanu dhayno inaanu qacan nabdeed wadanka ku hogaaminaanu doonaynaa ilaahay idinkiisa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahina hambalyada aanu dirayo kasako waanu ducaynayaa waxaan ugu ducaynayaa dalkan iyo dadkan ilaahay ku asturo madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi wixii uu geystay waa geystay oo taa ilaahay baa kala xisaabtamaya laakiin aakhira lacibkii u dambeysay inuu qurux badan qaatay xaraga badan qaatay wadankan wax badan oo uu yeeli lahaa uu ka dhowrsaday oo uu sameeyay wax la yiraahdo burdhaaf oo macnaheedu yahay inuu turaalo ahaa isagana waan ugu hambalyeeynaya waxaan se ka digayaa runtii oo aad iyo aad uga digayaa waxay nimankii bilaabeen boob baa la bilaabay waxa la sheegayaa baabuurtii wantanada ahaa in la oranayo hebelow 2000 qaado lambarka looga bedel marka waxaan uga digaynaa dawladda hore waqtigeedu dhamaaday ee dhacday ee laga codeeyay ee shacabku runtii ay ku yiraahdeen waad ku guuldareysteen hogaamintii dalka iyo dadkaba inay ka digtoonaadaan hantida ummadda ay boobayaan Soomaalidu waxa la yiraahdaa salli bay ku wada fadhidaa meel waxba inaguma qarqarsoona ari jiri war iskuma seegana shaqaala jooga dawladdii wasaaradahan hantidoodii la boobay shaqaala jooga agaasimayaal baa haraya kuwaasaan wareysan doonaa waxay noo sheegi doonaan hanti kasto wasaaraddu ay lahayd cid ay ku maqatay noo sheegi doonaan hadaa moodeysaan inaan xisbi mucaarad oo guuleystay u nahay oo aan naasir doon lahayn xisbiga mucaaradka sirdoon buu leeyahay imika wala digayaa hadhow inta oran lahaydeen ree hebel baa ninkaas ree hebel buu iyo ina heblayahayd waxaan leenahay ka digtoonaada hantida ummadda ee sida qarsoodiga ee isla wada garanayno aad ula dusaysaan hadhowna cabashadiinu yaana reer dibada gelin imika ma iskaga digtoonaada gaarigii lala baxsaday waanu haynaa hantida lala baxay waanu haynaa
guryaha imika la kala bedelaya lagu qoriyo waanu haynaa waxa waxba nagama qarsoona waxaan uga digaynaa muddada kala wareega labadii xukuumadii dhacday xukuumadda cusub ay xilka la kala wareegayaan inaanay dadku ku qaldamin inay hantida dadweynaha si sharci darro ula baxaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland nimanka ganacsadayaasha ah ee doonaya hanti aanay lahayn inay maalmo kaga faa'iideystaan waxa la wada hantidina xaaraan iska gelinina idinkuna hadhow hayso soo xirxidina adeer horta markuu isagu dawladda haba uu noo jawaabi jiray Soomaad garan walow aanaa dhiilkii isagu uu noogu lisay aanaa ugu lisay oo anagu kulay sidii u jawaabi jireen aanaa u jawaabay oo aanu aaminsanahay inaanu kana xigmad badan nahay kana aqli badan nahay kana tulaalo badan nahay waayo hadalku intaanu runtii soo marin afkaaga ayaa maskaxda la soo mariya waxaanu aaminsanahay buuni inuu ka mid ahaa shakhsiyaadka hadalka aan maskaxda soo mari jirin ee meel ka xun soo mari jiraan anagu aaminsanahay inuu isagu yahay anagu laakiin sidiisii ugu jawaabi mayno si xigmadaysan baan ugu jawaabaynaa si tulaalana aan ugu jawaabaynaa si aan runta ka tagsanayn ayaan ugu jawaabaynaa waxaanu leenahay buuni wuxuu ka mid yahay xisbiga mucaaradka kulmiye waananu ku ixtiraamsanahay aragtidiisa laakiin de madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal Ciro buuni sanka u daloola sanka inuu madaxweynaha qasado sanka u daloola haddii kale halkii uu joogi lahaa isagu is weydiiyo